musharax xildhibaan cali maxamed xasan oo kamid ah xildhibaanada u sharaxan golaha deegaanka ee degmada Gabiley oo maanta la hadlayay telefishinka caalamiga ee badda cas 24 TV ayaa waxa musharaxu shacabka ku dhaqan degmada Togwaja lagu baaqay inay ka qayb qaataan sida ay u qaadan lahaayeen kaarka codaynta taasi oo la filayo in 29 bishan ay ku jirno ay si habsamiye uga bilaabanto gobolka Gabiley xildhibaan cali maxamed xasan ayaa waxa shacabka kale ku adkeeyay inay ka faa'iideystaan chanceskaasi ay haystaan isla markaasina xoog ay saaraan sida ay u qaadan lahaayeen kaarka codaynta muwaadiniinta reer Somaliland meel kasto ay joogaan waxaan u sheegayaa oo aan ku tirtirsiinayaa inay waxa weeyaan markaa kaararka ay qaataan bacdama ay diiwaan gelintii ka bilaabmayso waxa weeyaan gobollo kamid ah Somaliland sida gobolka Gabiley iyo gobolka waxa weeye markaa Awdal iyo waxa weeye markaa Saaxil meel kamid ah waxa weeye inay ka bilaabmayso waxaan dadka u sheegayaa inay kaararka qaataan oo ay arinta waxa weeyaan waa mustaqbal waa arin waxa weeye markaa cid walba anfacaysa inuu qofka muwaadinkii xaqiisa guto oo xaq wuxuu u leeyahay helo taana dadka waxa weeyaan waan soo jeedinayaa reer Wajaale waxaan aad iyo aad u farayaa bulshada iyo maamulkaba inaynu waxa weeye markaa dadka xataa aan qaadanin ee miyada xataa jooga iyo meelaha kale in waxa weeyaan markaa la soo guro si ay dadkii waxa weeyaan markaa u qaataan kaararkii oo waxa weeyaan dadku ay u codeeyaan inta carabka waan ku adkaynayaa bulshada reer Wajaale iyo guud ahaan gobolka Gabiley iyo guud ahaan wadankaba waxaan u sheegayaa oo aan waxa weeyaan leeyahay waxa weeye markaa kaararka qaata guntiga gabagabada musharax xildhibaan cali maxamed xasan oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in haddii uu ku guuleysto doorashada la filayo inay ka qabsoonto dalka inuu xoog ka saari doono sida uga shaqayn lahaa arrimaha bulshada sida caafimaadka wadooyinka iyo biyaha waa haddii uu ku guuleysto doorashada la filayo inay ka qabsoonto dalka musharax xildhibaan cali maxamed xasan oo arrimahaas ka hadlaya ayaa waxa uu yiri sida tan waxaan u sharaxanahay golaha deegaanka ee degmada Gabiley wixii horumar ah insha Allah ta'ala wixii igaga aadan inaan waxa weeye bulshada wax badan bulshadeenu maanta waxay u baahan tahay wax qabad iyo cadaalad oo in si cadaalad loogu shaqeeyo sinaan loogu shaqeeyo hawlo fara badan ayaa waxa weeye markaa inoo yaala wadankeenu waa wadan curdina dadka uu sugayo ayaan kamid ahay waxa weeyaan Wajaale deganahay Wajaale iyada waxa weeye markaa iyada musharax baan u ahay aanan hadii Ilaahay qadaro aan Wajaale xaqeeda siin doona hadii aan halka waxa weeyaan markaa ku guuleysto u baahan tahay xildhibaan magaalada Wajaale markaa waxa weeye hawlaheeda iyo xuquuqda ay leedahay u hadla oo waxa weeyaan markaa u soo dhiciya ayaa noqon doona hadii Ilaahay yira xataa dhiska magaalada qaabka ay u fidayso in waxa weeye markaa iyadana istiraatiijiyad laga yeesho oo magaaladii waxaad moodaa inay sida u soo kale waxa weeye waqooyi iyo oogada xagga waxa weeye oogada ayuunbay magaaladii u kala baxday xagii laameyda ee bilicda magaalada soo saari lahayd intaasi waxa weeye iyaduna waa ay dhiman tahay bilicda magaalada ee waxa weeyaan haday tahay xagga wadooyinka iyo haday tahay waxa weeye waxyaabaha magaalada qurxinaya intaba insha Allah ta'ala waxa weeye iyadana waxaan isleeyahay wax badan baad ka qaban doontaa waxyaabaha aan isleeyahay magaalada wax badan ayaad ka bedeli doontaa oo aad ka qaban doontaa waxa kamid ah waxweyn xagga waxbarashada waxaad moodaa in waxbarashadoodu ay waxa weeye markaa aad u hooseyso taana tarkiiska ama xooga ayaan insha Allah iyadana saari doonaa waxyaabaha saari doona waxa kamid ah sportiska iyo ciyaaraha iyo dhalinyarta in waxa weeyaan markaa la habeeyo taana waxa weeye kulli wixii ka dhiman inaan berber istaagi doono oo waxa weeyaan dhalinyarta waxa weeyaan iyadana garab siin doono ayaan insha Allah ta'ala rajeenaya waxyaabaha iyo waxyaabo fara badan waxa weeyaan markaa in la shaqeeyo habeen iyo maalin wadankeeni loo gurmado oo la shaqeeyo ayuu markaa u baahan yahay waxyaabahaas oo dhan iyo waxyaabo kale oo fara badan insha Allah waxaan rajeenayaa inaan wax badan ka bedeli doono Khadar Cabdillaahi telefishinka caalamiga ee badda cas 24 TV degmo ganacsiyeedka Wajaale ee gobolka Gabiley